madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta kormeer kadisa ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi markii uu gaaray xarunta wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland aqoon-yahan Yuusuf Maxamed Cabdi oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo indheeyay hawlaha shaqo ee ay wadaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda isagoona xafiis u galay. waxa uu warbixin qoto dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka dhageystay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland aqoon-yahan Yuusuf Maxamed Cabdi oo madaxweynaha uga warbixiyay hawlaha shaqo ee wasaaraddu qabato. Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku faanay inay mar kale abuureen in shaqaaluhu galin dambe ay soo noqdaan si loo kordhiyo dakhli ururinta qaranka. madaxweyne muddadii aanu joognay waxaan aad iyo aad xoog u saarnay kobcinta dakhliga qaranka. cashuuraha barigu aad ayuu u hooseeyay iminkana korkac ayuu wadaa waana sii wadaynaa sanadba sanadka ka dambeeyay ayuu kolba kor ku kacay. madaxweyne waad ogeed waxaan diyaarin siyaasadii miisaaniyadda waxaan soo saarno kale miisaaniyadii qaranka ee 2018 nidaamka shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaan isbedel isagana ku sameynay oo maalin walba ilaa imikana socda waanu wadaynaa insha Allah bismillaahi kariim. waxaan dabagal iyo dib u eegis badan ku sameynay laamaha dakhliga uu ka kooban yahay ee cashuuraha bariga iyo kastamada. madaxweyne waxa aanu sameynay markii koobaad oo si fiican u midaynay labada buug ee buugga tacriifada ay ku shaqeeyaan cashuuraha barigu iyo buugga tacriifada ee ay ku shaqeeyaan kastamadu. imaka waxa noo qorsheysan oo gacanta aan ku hayna inaan diyaarino siyaasadda macroeconomic policy inaan diyaarino sidoo kale inaan diyaarino siyaasadda maaliyadda ee fiscal policy ah. waxa kale oo aan soo saarnay national tax policy strategy ama qorshaha cashuurta ee qaranku uu leeyahay oo kala xadeynaya cashuurta dawladda dhexe iyo cashuurta dawladaha hoose. madaxweyne waxaan doonaynaa sidoo kale madaxweyne aan hirgelino. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu bogaadiyay shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda isagoona ammaan u soo jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda sida wanaagsan ee ay u wadaan hawlaha qaranku. madaxweynuhu waxa xuseen maaliyaddu ay lafdhabar u tahay geedi socodka horumarineed ee qaranka waana kan madaxweynuhu arrimahaas iyo arrimo kale oo badan ka hadlaya. waxaan maanta idinku isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas'uuliyadda wadarahanada ee saaran haddaynu nahay dowladdii ama xukuumaddii. waxaynu ognahay maanta dadkeena Soomaaliland oo inagayna sugaaya internet lamid ah raadka ay ku raadaan abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday dadkaasi waxay sugayaan ilaahay ka sugo dowladda ilaahay ka sugo waxa wax ka sugaysaa dadkaas ay noolaadaan wasaaradda maaliyadda. marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummadda Soomaaliyeed sugaysa dad badan oo in badan soo shaqeeyay oo waaragnimada oo talada haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon oo isku jirta labadaas markay iskaashadaan waxa uu gaar karaa. marka waxa laga rabaa badda wuxuu soo saarayo aan keenaya bariga wuxuu qodnaya beeruhu wuxuu qabanaya barra shaqada la service adduunka ka shaqeysta barraya ee dalkan amjaarka nahay dekada wuxuu gudbinaya isu wada geeyo maaliyadda waxa laga rabaa dadka baahan waa disbiya horta halka ay ku soo duulo xilka ay ku soo duulina dawladuna idinkeed ka sugaysa oo dalku cadana waa haysata waxa laga fadhiyaa 3 sano ka bacdi 5 years later 2 years later halkeedii joogana maanta ka rabaa. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yiri saaka $4 afartiisa gacan yaray tii Kismaayo tii Garowe tii Baydhabo tii Jawhar oo samareed saaka qoorada saxanay gaadada yihiin Soomaaliland waxa laga sinaa miyay ku jirtaa waa laba gabaraya waxa sababay waxaan ka baxaynaa
kormeerka madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa uu ka mid noqonayaa kormeerro dhowr ah oo madaxweynuhu ku marayay wasaaradaha kala duwan ee qaranka si uu u soo kormeero shaqada qaranka ay u hayaan wasaaraduhu. Sakariya Sudaysi, Telefishinka Ariel, Hargeysa.